2006 aan imid magaalada Buuhoodle anoo xilliga u helay inaan ka bilaabo dugsiga malcaamadda barashada Quraanka Kariimka iyo cilmiga diinta waxaan kaloo aan ka shaw helay inaan dhigto iskuulka sare iskuulka hoose dhexe Abubakar Sadiiq ee magaalada Buuhoodle iyadoo aan ahaa dufcadii ka qalin jabisay 2018 waxaan hadda aan ahay arday dhigta dugsiga sare ee Samatar Baxnaan hoyga aqoonta cilmiga ee Buuhoodle fasalkiisa labaad dabadeed markaan arkay inaan ku habboonahay qabashada xilkan markaan arkay inaan karti fulneed hal adeeg go'aamineed dulqaad iyo xiltash bulshaan aan leeyahay waxaan go'aansaday inaan mudanayaal iyo marwooyin isku soo sharaxo xilka ugu sareeya ee naadiga akhriska qoraalka oo Jaamac Umar Ciise sida maanka yada daabiyelida wacyiga bulshadeena waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaashii kala dambeeyay booskan waa gudoomiyihii kumeel gaarka ee naadiga uuna horeeyay Nicmo Maxamed Baxnaan oo hadda joogta Turkiga gudoomiye Xurmad la Jaamac Axmed Xasan oo ahaa gudoomiyihii labaad ahna gudoomiyihii koobaad ee naadigan waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa Sharfaan Cabdicasiis Maxamed Madadaal oo ah gudoomiyihii igu horeeyay xilkan aan maanta u tartamayno aniga iyo musharaxiinta kale dib u dhigistii doorashada waa gudoomiye Caasha Maxamed Cabdille dabadeed haddaan inta kaga soo gudbo halkudhigaygu koobaad waxa weeye waa hogaamin ku salaysan tala wadaag taasoo aan xubnaha naadiga aqoon-yahanada gobolka aan weydiin doono wixii fikrad iyo talo ah halkudhigayga labaad waa mashruuca baahinta akhriska iyo balaarinta wacyiga bulshadeena haddii aad mudanayaal iyo marwooyin aad garataan inaan noqdo gudoomiyaha saddexaad ee naadiga akhriska iyo qoraalka oo Jaamac Umar Ciise waxaan ballan qaadayaa oo aan ficil fikrad intaba raacinaya inaan noqon doono horseedka ugu horeeya ee bilaabi doona dhisidda inaan ahaan doono qofka ugu horeeya ee bilaabaya fikradda iyo ficilkaba inaan maktabadan gobolka ee maanta dhex joogno ay hesho maqaamkii ka maqan ama ahaato deyrkii ama waxyaabaha ay tabayso waxaan kaloo aan ballan qaadayaa haddii aad doorataan xilkan maanta aan u sharaxanahay inaan mudanayaal iyo marwooyin aan noqon doono aasaas hormuudka koobaad ee ka qayb qaadan doona sidii ay degmooyinka gobolka hoos yimaada ay heli lahaayeen goobo wax akhris sida degmooyinka Ceegaag Xararan Hurfadhi iyo Wadud iyo degmooyinka lamida waxaan noqon doonaa horseedka koobaad ee ka qayb qaadan doona in goobaha sahlan maktabada wax akhris oo lagu koriyo maanka dhalinyarada soo kacaysa degmooyinkaas waxaan sameyn doonaa hadduu alla yiraahdo eebana uu idmo idinkuna aad garataan inaan xilkan lay doorto barnaamijyo dhiirigelin oo lagu abaalmarinayo xildhibaanada dooranaya musharaxii saddexaad ee naadiga akhriska iyo qoraalka oo Jaamac Umar Ciise sidoo kale waxaan salaamayaa musharaxiinta la tartamaya Nasra iyo Jamaal waxay idin rajaynayaa guul saaxiibayaal hada iskale subxaanahu wa ta'ala marka labaad in yar baan sira qeexi doonaa aniga magacaygu waa Nasra Cali Maxamed degan magaalada Buuhoodle wax ku baratay kuna barbaartay joogtana hadda ballanqaadyadayda haddaan u soo laabto mudanayaal iyo marwooyin marka koobaad aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad dooran doontaan marka aad dhegaysataan ballanqaadyadayda iyo khudbadayda insha Allah haddii aad dooran weydaan oo doorataan dhigaygana waa u hambaleynayaa mudanayaal iyo marwooyin haddii aad doorataan haddaad ii doorataan xilka gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka oo Jaamac Umar Ciise waxaan ballan qaadayaa inaan guto waajibaadkayga shaqo ee aad ii doorateen anigoo si hufan uga soo bixi doono mudanayaal
qori sudhiib weeyaan xilkaas waxaan rajaynayaa gudoomiyaashii horena ay si wanaagsan u soo qabteen waxaan rajaynayaa inaan si wanaagsan uga soo u gudan doono mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii doorataan xilka gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka Jaamac Cumar Ciise waxaan ballan qaadayaa inaan soo camiri doono intii karaamkayga ah maktabadan quruxda badan ee aad fadhidaan oo maanta u baahan buugaag isla markaana marfishadooda ay maran yihiin waxaan geed gaaban iyo mid dheer u fuuli doonaa sidaan u camiri lahaa maktabada gobolka una keeni lahaa buugaag tayo leh oo anfacda maktabada gobolka iyo akhristayaasheedaba mudanayaal iyo marwooyin haddii aad ii doorataan xilka ugu sarreeya ee naadiga akhriska iyo qoraalka Jaamac Cumar Ciise waxaan ballan qaadi doonaa insha Allah inaan soo dumi doono qulubtooda mimbarada ama xubnaha ku jira naadiga akhriska iyo qoraalka aan u qaban doono kulan bilo ah kharashkiisana anigu aan dhabarka saaran doono iyo martigelintiisa mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa haddaad ii doorataan xilka gudoomiyaha ee naadiga akhriska iyo qoraalka Jaamac Cumar Ciise inaan qaban doono barnaamijyo tayo leh siina xoojin doono kuwii hore u soo socday ee geedi socodka ahaa waxaan rajaynayaa inaad ii dooran doontaan xilka gudoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa inaan qaban doono inaan ku shaqayn doono fikirkiina iyo la tashigiina si wada tashiya iyo maxaan ku raahdaa isfahanan aan wada shaqayn doono muddada aan xilka hayo ee sanadka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad dooran doontaan haddii ay ii garan weydaan xilkaasna waxaan rajaynayaa dhigayga loo doorto inuu ku guuleysto inaan u hambaleeyo mar walbaba aad iyo aad baa u mahadsantihiin jagada gudoomiyenimo ee naadiga akhriska qoraalka Jaamac Cumar Ciise waxaan iloobaynaa mahad celinayaa mar walba guddiga qabanqaabada xafladda doorashada gaar ahaan gudoomiyaha Cabdisalaan oo runtii xafladan aan aragno isku soo dubaraday iyo dhammaan guddigii waxaan mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha qaybaha ururada haweenka iyo dhalinyarada dhamaanteed intaas kadib jaalayaal anigu waxaan iska kin sharaxo ma garanaya intaas oo dhan baad ma garanaysaa aan isla soo shaqaynanay dhamaantiina waan soo wada garananaa runtii qof maanta isku cusub oo shaqadiisa iyo hawlihiisana aad maanta isku kin sharaxay ma ihi laakiin sida waajibaadka balaan in yar ka taataab taariikhda magacaygu waa Nasri Cabdi Cabdilaahi waxaan ku dhashay miyiga Buuhoole waxaan ku barbaaray isla magaalada Buuhoole waxbarashadaydii hoose dhexe waxaan ku qaatay Darwiish waxaan bilaabay 2017 dugsiga sare Samatar Baxnaan haatan aan wali ku jira galaaska form 4 ahay haddii idmo kale taariikh saas u weyn ma lihiye intaas baan ku soo gabagabeynayaa naadiga akhriska qoraalka Jaamac Cumar Ciise يعني ما دي كرو أساس كيسي بنشوفه لكن لا أساس كيسي ما سعودي يسوي دور بلوك جرا يعني كوسا بيره إلى هاتنا حيل كلا دوم بانك سوا قبسي رنتي حيالا لتعاون كرايو دمان تنندي هنا أي مرخاتيو وحن دي بقول الله بتوه هولي عن سوا قبسي مهمة لكن وحن إدين سوتشين دونا هذه لا دورتو شجع دا قدومي نمو أما حفيز كوسر ريا نادي آخر سقولك أو شام مدرسة سنة كسوة صعدة وحيالي عن قبل لها مودنا يالي مروين هذا دي قرطان شجع دا وقصر رئيسة نادي آخر سقولك شجع دا قدومي نمو وحن قبل دونا كوكا بلابي دونا تريدا وحن كردين دونا تريدا بوقاكتا مكتبة الطال هاتنا دا قيبكها بوقاكتا يعني تالا انت تريدا يليقين أما أنا سعودي أما قيبكها انت تالا هذا هداد إيه دورتان waxaan kordhin doonaa tirada buugaagta maktabada balaarinta iyo xiriirka dibadda ku dhaqmida xeer hoosaadka naadiga lambar 4 xoojinta xiriirka iyo iska warqabka naadiga soo kordhinta xarun dhaqan runtii aniga xaruntaas aad bay igu muhiim tahay idinkan aad igu muhiim tahay deegaanka oo dhan ugu muhiim tahay waa midka ugu waxaan isdhahayaa yani ugu tolmoon ee ku jira waxqabadkan inaan soo kordhino xarun dhaqan oo magaalada iska leedahay waxaanu magaaladana ku tilmaamanaa xaruntii yani inay tahay xarunta suugaanta iyo dhaqanka balse xarun dhaqan male haddaad mudanayaal marwoon ii garataan inaan sanadkan soo socdo hogaanka u qabto naadiga akhriska qoraalka waxaan ballan qaadayaa inaan furi doono xarun dhaqan oo magaaladu leedahay
bad mahadsantihiin waan sii wadanayaa soo kordhinta barnaamijyo cusub runtii naadigu soo qabtay barnaamijyo cusub oo kala duwan barnaamijyo badan oo kala duwan laakiin waxaan ballan qaadayaa barnaamijyo ka gedisan oo aan rajaynayo inay deegaanka faa'iido u soo kordhinayaan sidoo kale maktabadda iyo naadigaba ay horumar gaarsiinayaan inaan furi doono keenida deegaanka aqoon-yahano indheegarad waxaan deegaanka geyn doonaa mudanayaal iyo marweyn haddaad ii garataan kuwa ugu caansan Soomaalida uguna aqoon sareeya hadii ay bahaydmo tayeynta aqooneed ee xubnaha naadiga haday tahay in aan qabto tababaro kala duwan oo aan ku dhisayo aqoonta iyo waayo-aragnimada number 9 horumar ayaan ku samayn doonaa gudaha maktabadda sida aan u qabto qof gaar ah oo ka shaqeeya lagana xisaabtamo iyo inaan sameeyo system lagu ururiyo xogta maktabadda si ay u yaraato ama ay meesha uga baxdo in si dib yar loogu waayo buugaagta maktabadda ee qaybo kamid ah saad la socotaan maktabaddu waa maktabadda deegaanka maktabad kale oo jirta ma jirto maalmaha wada geedana waxa xayirnaa buugaagta maktabadda laga qaadan jiray khaladaad yar oo dhacay oo dadkan buu soo celiyay waxa la mid ah haddaad ii garataan mudanayaal iyo marweyn inaan sanadkan soo socdo hoggaanka u sareeya naadiga qabto waxaan ballan qaadayaa inaan qof gaar ah yani oo ku shaqo leh oo naadiga ka baxsan uu maamuli doono maktabadda sidoo kalena inaan system inka aniguna IT baan hay ku darsada inaan system samayn doono maktabadda lagu maamulo si uu dhumiyaan si uu yaraato buugtii lumisay iyo waxyaalaha noocaas ah waxaan ku dadaalayaa inaan maktabadda ku xigo wireless sababtoo ah yani dhalinyaro ayaa timaada xog raadina oo yani markay wax buugta ka raadinayaan iyaguna u baahan inay ay khadkii wax ka raadsadaan akhris wadareed ayaan qaban doonaa xubnaha naadiga waxaan dhamaystiri doonaa hawlihii hore u yaalay naadiga iyo furitaanka barnaamijyo cusub intaas waa in yar oo kooban oo aan ku soo qoray laakiin waxyaalaha badan ee ay la damacsanay inaan qabto yani hadaan jagada naadiga ku guuleysto ayaa ciidaas ka badan waxaan rajaynayaa inaan wacyiga gaarsiiyo iyo wacyigelinta wax akhris inaan gaarsiiyo deegaanada nagu hareersan sanadkii hore aan musharaxnimada sanad kale ugu soo taagnaa waxyaalo ka lamid ah oo aan xaggan ka sheegay yani dhalinyaradii markaan xilka sanadkan haysay way qabteen oo way fuliyeen haddana waxaan idin ballan qaadayaa haddaan ku soo baxo jagada gudoomiyenimo iyo haddaan ku soo bixima waxyaalahan aan soo taxayba inaan mar walba ka dhabaynayo oo aan qaban doono aniga muhiimadaydu waa inuu naadigu horumar gaaro naadigu hadduu horumar gaarana magaalada ayaa horumar gaaraysa muhiim ima aha jagada laakiin waxaa muhiim ah inaa yani aan horumar gaarsiiyo haddaan ku soo baxo waa qabanaya haddii dhalinyarada kale dhigaya ku soo baxdana waxaan ballan qaadayaa inaan garab taaganahay qodobaday soo diyaarsadeen qodobadeedana aan isla barbartaagi doono oo aan wada fulin doono mudanayaal iyo marwooyin haddaad ii aragtaan qof ka soo bixi karaa xilka ugu sareeya naadiga waxaan iska codsanayaa inaad codkiisa siisaan aad baad mahadsantiin